بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وان idin salaamay dhammaan ardada iyo asxaabta ku xiran kanaalkeenan YouTube Bara Luqada Academy mar kale iyo isku soo noqod wacan oo wanaagsan ayaan idin leeyahay meel walba aad joogtaan kula soo dhawaada muuqaalkeenan maanta oo ah casharkeenii 14aad casharadeenii imtixaanaha ah inoo soo socday ee barashada luqada casharkeena ciwaankiisu waxa weeyaan waa conversation wada sheekaysi sida idin muuqataba balse ka hor intaynaan u guda galin casharkeenan waxa aynu ka cudur daaranaynaa habsaanka ama kala go'go'a xagga yaga ah ee casharadeena oo micnihi waxaan ku yiraahdaa inaan isugu kaya xigin taasoo runtii mashquulo dhanka yaga iska jira iyo waxa kaloo aynu ku mashquulsannahay aynu diyaarinayno course ka oo lagu baranayo luqadda Ingiriishka kaliya diyaarintiisu maaha maca waxaynu diyaarinaynaa buugaagtiisii marka taas waan ka cudur daaranaynaa oo xaggaas mashquulka guud iyo ka mashquulkaas si gaar ahaaneedna waa iska jira insha Allah markana casharkeena ayaan u guda galaynaa wixii marka course-ka ku saabsan ogeysiiskiisa ahna waad insha Allah waad la socon doontaan iyo qaabka uu ku bixi doono iyo markaas cid alla cid danaynayso inay ka faa'iideysato insha Allah wahagaag bal markana aynu casharkeena u guda galno casharkeenu waxa weeye waa wada sheekaysi conversation wada sheekaysi weeyaan lessonkan waa lessonkii 14aad casharadeena imtixaanaha inoo ahaa sida caadada inoo ahaydna wada sheekaysi sidiisu inta badan wuxuu u dhaxeeyaa laba qof inagoo marka tusaale ahaan u soo qaadanayna A iyo B sida hadda casharkeenan inooga muuqataba waxa weeyaan waa A iyo B ayuu u dhaxeeyaa wahagaag ama qofka ayaa warkan uu hadlayaa su'aasha isaga bilaaba wuxuu leeyahay ama hadalka I am very glad anigu very glad aad iyo aad ayaan uga faraxsanahay ereyga glad waa farxad happy ayuu la macno yahay I am very glad to have a conversation with you anigu aad baan ugu faraxsanahay to have conversation with you inaan wada sheekaysi adiga kula yeesho to have conversation with you in aan adigu wada sheekaysi kula yeesho aad baan ugu faraxsanahay I hope waxaan rajaynayaa our conversation wada sheekaysigeena will be inuu noqon doono ama uu ahaan doono very exciting mid aad u xiiso badan I don't like a boring conversation anigu ma jecli ama kama helo a boring conversation wada sheekaysiga maraxa ah ama boringka ah oo aan يعني معنيه عاجز كله وقال كذا قفك كله B يا أسجنا جاوية وحليه هاي please فضلا can you do me ما يسمين كرتا please فضلا can you do me ما يسمين كرتا favor نحريس أما إحسان ما يسمين كرتا and speak slowly وهذا البويدي speak وهذا slowly ست ترتيبة وهذا أي هذا يا إسنا وحوليه هاي سؤال بويديني أو وحوليه am I speaking too fast ماشاس to ذا وحويه و TOO T ده لو يعني هذا أو هل أو بكرد من معناه to ولا شيء ذا يعني add ولا شيء ذا am I speaking too fast أنا add يعني ودقسنيا fast ودقسشدا أما دقدقة يلا لها إرجع fast مركا هذا الكيجو ما مد add ودقسنيا معنيه وبوسيس ميا ولا شيء ذا am I speaking too fast ماشي مركا حد وقت أنا ضي تو كلية ما هاي وتو معنيه لو أوي بي وجوابي وحول ليها yes you are speaking too fast وكنا too ده شيء واسدان اللي فهمتها بأمبلينيا you are speaking too fast you are speaking أو واحد ليسا too fast يعني آد ودقسله آد ودقسيان بدن بعض واحد ليس معنا هذا الكاغو آد بوبسيس ويها بقولة كذا you know واد أكتها مواد قرانيسا we are still beginners we are إننا still ولي معنا we are still إننا ولي وحين نهاي beginners بينو نهاي بلو بينو نهاي يعني أو قد بلو بينو كن نهاي مركا سيدا سنوات أكتها محاد سي دقسله واحد ليس أم هذا الكاغو آد بوبسين يساوي إيبا جاوية أما إيبا هذا مركيسا سنو حولي هاي Are you ready? أدو ديار ما أتهاي. Are you ready? أدو ديار ما أتهاي. To answer إن أتك جوابتيد. Answer وجواب. Are you ready? أدو ديار ما أتهاي. To answer إن أتك جوابتيد. All my questions. لمان سؤال هيجا. All my questions. لمان سؤال هيجا. إن أتك جوابتيد. أدو ديار ما أتهاي ويري. B وجواب يا وحي ليه إسنا. Yes I am ready.
anugu diyaar baan ahay to answer in aan ka jawaabo every question su'aal waliba ama su'aal kasta you ask me aad adigu i weydiisid aniga. But laakiinse don't ask me ha i weydiinin. Don't ask me maxaa weeye ha i weydiin difficult questions su'aalo ad adag ha i weydiinin buu yidhi. I want you waxaan anigu kaa rabaa adiga. I want you to ask me anigu waxaan kaa rabaa inaad i weydiisid questions su'aalo about ku saabsan our lessons casharadeenna. I want you ask me. I wanna you to ask me. I wanted you anigu waxaan doonayaa adiga aan kaa doonayaa to ask me in aad i weydiisid questions su'aalo about ku saabsan our lessons casharadeenna. Baa hadlaya wuxuu leeyahay isna do you know ma ogtahay ama ma garanaysaa many words erayo badan ma garanaysaa micnaha of English oo luqadda Englishka ah. Do you know ma garanaysaa many words erayo badan many waa badan words erayo of English ee luqadda Englishka ah. B baa isagana jawaabaya wuxuu leeyahay no maya I don't know anigu ma garanayo ama ma ogi ama ma garanayo dheh. I don't know anigu ma garanayo many words of English erayo badan oo English ah ma garanayo aniga. Baa hadlaya wuxuu leeyahay why is English important to you? Why sababtee baa is Englishku important to you oo adiga muhiim kuugu yahay? Sababtee baa Englishku adigu muhiim kuugu yahay ma ii sheegi kartaa? B waa isna jawaabaya wuxuu leeyahay English is important. Englishku waa muhiim to all of us inagoo dhan ayuu muhiim inoo yahay. Englishku waa muhiim. English is important. Englishku waa muhiim ha ahaada ayuu u yahay marka to all of us buu yidhi inagoo dhan buu muhiim inoo yahay. You know English waad ogtahay Englishku is the key waa furaha to communication ee xiriirka. Waa furaha يعني communication كوي حرير مركي إن قف ولا حريره فري وكل حرير لهاوي. We learn English إنه وحن برنا English أينو برنا حين وبرنا to communicate بوليه سأن with the people يعني سأن دتك ولا حريرنا to communicate سأن ولا حريرنا with the people دتك سأن دتك كله وقول حريرنا أينو برنا. وصح هذا اللغة English كا sidaynu ognahayba waa international language maadaama ay iyadu hadda international language tahay oo micnihii luqad caalami ay tahay qofkii bartaana hadduu yani luqadaas Englishka uusan isaga u dhalan waxay ka saacideynaysaa ama ay u fududeynaysaa inuu bulshada kale ee dadyooga kale ee dunida daafaheeda inteeda kale ku nool uu kula xiriiro. ka Soomaali ahaan inaga hadda tusaale ahaan haddaad wadanka Soomaaliya aad ka duushid diyaarada aad micni wadanka ka tagtid oo aad dibadda u baxdid waxaad ogaanaysaa luqadda Englishka inay tahay communication waxa aad dadyooga kale aad kula xiriiri lahayd inay tahay. dad badan oo hadda safrayna waa ogyihiin qofkii marka aanan safrinna waa ogaanaya runtii. marka wuxuu leeyahay we learn English inagu Englishka waynu baranaa to communicate with the people waxaynu u baranaa in aynu dadka kula xiriirna ayaynu u baranaa buu leeyahay. baa haddana hadlaya wuxuu yidhi isagana soo sidaa darteed what is the best way waa maxay habka ama qaabka wayga ama wadada ugu fudud best way yani wadada ugu fudud to learn English Englishka lagu baranayo حتى you know waad ogtahay buu yidhi English is difficult to all of us waad ogtahay in Englishka waad ogtahay Englishku is difficult inuu adag yahay to all of us dhammaantayada inagoo dhan inuu nagu adag yahay waad ogtahay bal ka waran waa maxay the best way wadada ugu wanaagsan ee lagu baran karo. B baa jawaab wuxuu yidhi you are right waa sax buu yidhi Englishka inuu anaga dhan nagu adag yahay waa sax bal laakiin are you serious adigu ma ka dhabaa about learning English barashadiisu ma ka dhabaa hadduu mar yani kugu adag yahay waxaa imaanaysa su'aal ah horta barashadu ma ka dhabaa haddii mar ka dhabtahayna waxaa haddana imaanaya dadaal iyo wixii inay fududaadaan micna marka hadalka saas uu la jeedaa you are right buu yidhi adigu waa saxan tahay but are you serious adigu dhab mayaa tahay oo qof ay ka dhabtahay ma tahay about learning English barashada Englishka serious waa dhab yes ha buu yidhi yes ha buu dhahay I am serious about learning English anigu dhab bay iga tahay barashada luqadda Englishka but laakiin I am fed up with anu waxaan qadiyaan ama quus ka taaganahay fed up with waa waxa marka aad quus ka taagan tahay oo aad in badan wixii aad isku dayday wixiina markaasi kugu adkaadeen yani heer qofku wixii marka uu ku dhawaado inuu shaygii barashadiisa uu ka quusto ereyga marka fed up with waa qadiyaan ama quus but laakiinse I am fed up with anu waxaan qadiyaan ama quus aan ka taaganahay speaking English
ku hadlidda Englishka ama luqadda Englishka ku hadlideeda ayaan qadyaan ama quus ka taaganahay maxaa laga yaabaa marka qofkan in xagga writingka ama xagga maxaan ku raadayay listenka uu ku wanaagsan yahay laakiin xagga ku hadlidda markay timaado luqadda uu yani uu quus ka taagan yahay uu fed up with uu dhahayo yani quus ama qadyaabba ka taaganahay b baa jawaabaya wuxuu leeyahay bad laakiinse in my opinion anigu fikradeyda opinion waa fikrad ama idea the best way habka ugu wanaagsan ama wayga ama wadada ugu fiican to learn English lagu baranayo is to speak it in lagu hadla kaliya luqadda Englishka ma ahan any other language luqad kale oo dhan markaad baranaysidna waa sidaas oo kale wayga ugu wanaagsan ee lagu baran karo luqadaas ayaa ah in lagu hadlo oo practice la sameeyo waa kaas qaybta hoos wuxuu ku leeyahay you must practice speaking English waxa waajib ah oo must ah eriga must waa waajibe adiga must waxa waajib kuga ah practice speaking English hadlida Englishka ama luqadda Englishka inaad practice garaysid oo aad in badan ku celcelisid insha Allah waa conversationkeeni intaas ayuu inoogu dhan yahay intaynu casharkiisa xiga dib ugu kulmi doonana waxa aan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabad geliyo السلام عليكم